maxamed axmed cabdilaahi muwaadin u dhashay waddanka Itoobiya oo in ku dhow 22 sano ku qaatay xabsi magaalada Hargeysa isagoo sheegay in xabsigaas lagu xidhay 2001 muddadaas inta leeg kadib uu xorriyadiisa dib u helay isagoo ka hadlaya dareenkiisa farxadeed ee ku aadan inuu dib u helay xorriyadiisa isagoo dhanka kale intaas ku daray inuu maamulka Somaliland u yimid sanadkii 1991 isagoo ahaa shakhsi aan waddanka u dhalan balse iskaga nool shaqaystana balse ugu dambeyn sanadkii 2001 bishii 11aad uu xabsi ku yaal magaalada Hargeysa lagu xidhay isagoo xabsigaas ku jiray muddo gaaraysa 6 sano kadib xabsigii dumis iyo dib habayn lagu sameeyay awgeed maxbuus maxamed axmed loo wareejiyay xabsiga Mandera sidaasna lagaga wareejiyay magaalada Hargeysa isagoo sheegay in muddo gaaraysa 10 sano oo kale uu xabsiga Mandera ku xirnaa kadib lagu soo celiyay xabsiga Hargeysa sanadkii 2016 maxamed oo waayihiis nolod wax ka sheegay intuu ku guda jiray xabsiyada Mandera iyo kan Hargeysa ayaa sheegay inuu diinta islaamka qaatay quraanka kariimka iyo waliba xadiisyadana uu ku bartay xabsiyada dhexdooda halkaasna iyo waliba waxbarashada noocyadeeda kala duwan uu ku dhex bartay xabsiga wax kastana uu garanayo kuna faraxsan yahay inuu maanta haysto diinta islaamka una jecel yahay inuu dadka kale ee diinta haysan uga faa'iideeyo una nasteexeeyo diinta islaamka isagoo sheegay inuu ku jiray xabsiga inuu maalmaha ciida oo kale uu murugoon jiray balse inta kale waayihiisa nololeed uu ahaa mid caadiya kuna qanacsan isagoo sheegay inuu xabsiga Mandera intuu ku jiray uu ku dhex shaqayn jiray ciidamada asluubtuna ay aad u caawin jireen noloshiisana iska wanaagsanayd wuxuu kaloo intaasi ku daray in muddo gaaraysa 17 sano inuusan maxkamadda la kulmin intuu xirnaa mar uu ka hadlay caqabadihii soo gaadhay intuu xirnaa silsiladii lagaga xiri jiray lugta ay lugtu bararto aadna ay u xanuunto ilaa haddana uu sheegay ay lugtu xanuunto kadib sanadkan inuu hadda ku guda jirno uu maxkamadda Jaanis u helay inuu la kulmo isagoo lagu xukumay kulanka kadib lacag kadibna uu xabsiga iskaga noqday isagoo ka yaaban inuusan haysanin cid lacagtaasi ka taageerta ama ka bixisa balse ugu dambeyntii alla u sahlay qof lacagta ka bixiya sidaasna uu ku helay xorriyadiisa